ahaantii kolley way ku cusbaan doontaa bulshadeena ama bulshada ku dhaqan guud ahaan Hargeysa oo marka la yiraahdo gudidii nabadgelyada caasimadda Hargeysa gudidii nabadgelyada qaranka oo yeedhay 9kii degme gudoomiyaasha caasimadda Hargeysa iyo 9kii gudoomiye nabadgelyo ayaa wax cusub nagu noqon doonta kolley marka la dawladda hoose caasimadda Hargeysa waa hooyada bulshada ku dhaqan ama guud ahaan dawladda hoose waa hooyada bulshooyinka ku dhaqan gobolada ama degmooyinka marka sababta aan mid maanta golaha waxa weeyaan in guud ahaan ama ay noogu yeedheen gudida nabadgelyada golaha guurtidu in guud ahaan la xoojiyo nabadgelyada gobolka iyo caasimadda annaguna ka gudoomiyaal ahaan ama 9 gudoomiye degmooyinka caasimadda Hargeysa inuu afkooda ku hadlaya ama 9ka guddi nabadgelyo halkan la jooga kolleeyagu waxay gudanayeen shaqadoodii nabadgelyada ahayd annagana waxa laga weydiiyuun roolkayagii ama qaybtii aanu ku lahayn nabadgelyada caasimadda Hargeysa oo runtii aad uga shaqeyno marka 9 gudoomiye degmada caasimadda Hargeysa laga hadlay ama 9 gudoomiye nabadgelyada runtii nabadgelyada waan ka shaqeynaa xubnaanu ka nahay hariya habeenba waan u soconaa marka waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa gudida nabadgelyada oo waajibaadkoodii gudanaya in ay su'aalihii aan weydiiyeen iyo wixii ay xog u baahnaayeen sidoodu u siinay kulamadeeduna intan ka badnaan doonaan baan rajaynaynaa haddii Ilaahay raahdo